dalka disidiisa hore u sii marino inta nool oo madaxda halkan fadhida ugu horeysa ciidamada ka tirsan oo sharaftan soo gaarsiisay iyo madaxdooda Sheekh Shaakir waa u mahad celinaynaa inta dhimatana waxaan leenahay Ilaahay jannadaha ka waraabiyo ciidamadii soo dagaalamay halkan waxay u soo gaarsiiyeen in halkan ka sii wado wiilashan halkan jooga waa boqolaal kamida kumanaan la diiwaan geliyay ama la diiwaan gelin doono oo loogu talagalay inay difaacaan qarankooda waxay soo qadimeen naftooda annaguna waxaanu hulweynaa qalinkeena iyo qalbiyadeena beesha caalamka safiirada ka socdo dhan waa u mahad celinaynaa waxaa kaloo u mahad celinaynaa shacabka reer galmudug oo arrinkan suurto geliyay meesha aan soo gaarnay hadda rajada ay naga qabaan shacabka Soomaaliyeed meel walba aan joogno caqabad walba iyo dhagax walba oo naga hor yimaada waxaan rabaa inaan xasuusiyo inaan gadaal loo noqon karin inaanay shacabka Soomaaliyeed naga aqbalayn in gadaal loo noqdo inaanay wiilashii dhintay Allah u naxariista naga aqbalayn inaanay hooyooyinkood naga aqbalayn hal dariiqa noo furan waxay tahay galmudug midaysan toosan tayaysan ka xoreysan cadow oo aan mar dambe lagu arkin khawaarij dambe arrinka galmudug waa arrin Soomaaliyeed dhalinyarada la isugu keenay halkan iyo kuwa xerooyinka ku jira oo dawladda iyo adduunyadaba la shaqayn doonaa waxay u shaqaynayaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan laakiin maadaama gobollada galmudug oo dhan laga keenay hadafku waxa uu yahay inay marka hore xoreeyaan galmudug dib u heshiisiinta halkan ka bilaabatay dhismaha la rabo in dawlad furan cadaalad ah xor ah qof waliba magaalo madaxda galmudug oo Dhuusamareeba ay xaq u leedahay inay timaado ku tartanto waxa uu noo suurto gelin doonaa dadaalka iyo dagaalka in aad kula jirtaan si dalka cadowga looga xoreeyo si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa Sheekh Maxamed Shaakir oo nala soo shaqeeyay halkan na soo gaarsiiyay aan aaminsanahay inuu sii wadi doono si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa madaxweyne Xaaf isaguna nagala shaqeeyay in reer galmudug ay doortaan madaxda xaq ay u leeyihiin isagu qayb ka ah dib u dhiska dalka taladii galmudug waxay gacanta u soo gashay reer galmudug wiilashiinni naftooday soo qadimeen hooyooyinkiinni farxad ayay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan oo idin fiirsanayaan adduunyadiyo isla socotana reer galmudugow waa la idin keenay laga bilaabo maanta saacadaas galmudug wixii ka halaaba inta halkan fadhida ayaa mas'uul ka ah oo reer galmudug ugu dambeyntii wiilasha halkan jooga waxaan leeyahay ma matashaan qabiil ma matashaan qolo ma matashaan koox madaxda halkan joogto ciidamadana waxaan leeyahay ma matashaan gobol ma matashaan qolo waxaad matashaan qaranka Soomaaliyeed maadaama laydin qarameeyay waxaa la rabaa inaad soo celisaan sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeedna waxaan rabaa inaan u sheego bil ka hor idina ma aaminsanayn in reer galmudug ay ku heshiinayaan inay galmudug wada dhistaan idin ma aaminsanayn in ciidamada gobollada galmudug oo dhan la isu keenayo la xareynayo dawladda federaalka ka mid noqonayaan idin ma aaminsanayn in adduunyada indhaheeda ay ku soo jeesan doonto
tani waxay tusaale u tahay ciddii aan aaminsanayn inay Soomaaliya hore u socoto halkana tusaale kaaga ah ma istaagayno ilaa aan dalkeena dib u dhisno ma joojinayno ilaa aan hooyo walba siina xuquuqda ay leedahay ma joojinayno inay noqoto Soomaaliya ay ahaan jirtay ma joojinayno ilaa aan gaarsiino Soomaaliya inay noqoto meel lagu soo ordo aan laga soo ordin Soomaaliya ha noolaato ma tantii أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلهي سبحانه وتعالى تبديننا إذا ماذا قلت سيدا وأمهات عينينا سيدا أيديات وفيهم عدد ولدي عبق ولدي وشي بلعان إمام الوصع ده إن شاء الله تعالى وحنو قيبين لنا فرين قابل مرق يعود إذا السؤال لما مرمان محاطية تلقى على رقبة بمرة لارتا ملايين أبو بامر جلقة مرناسية مرال كوجبة جميلة يوم هندس كودية مطعم عرفان حتى موضع أولانين مع العليم والعظم مرنا شمبر الكاية مسارها قبعة بكلمة وسندوق نهاية مرادنا قدو مر العظيم إنسان على قرار النهيجانا دين الدولة سودانية بعقودين وطن مريان إسبارنا دكتور عام مساكينتا فجبا ميبانا نغفة بيهوى سندوق حكومة القلب الشيخ محمد شاكر على حسن وده شرف يا كفر قيلها كالقديسان بيت عارك سفارة نسوة دوالة ولالهم ودون هيا أو دحبي وزاره سيدي عريسة